munaasabaddan waxay dib sir sare loo soo gaarsiiyay oo lagu sabootinayay dufcaddii shanaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Armas qaybteeda magaalada Hargeysa ayaa maanta lagu qabtay Hotel Mansour. Munaasabadani ka soo qayb galay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Excellent Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo, xubno ka mid ah golihiisa wasiirada, mas'uuliyiinta kala socotay jaamacadaha Armas qaybaheeda kala duwan ee Hargeysa iyo Addis Ababa. Ardayda qalin jabinaysay maanta oo ku shaqlanaa dharka gaarka ah ee qalin jabinta, waalidiin, madax dhaqameed iyo marshab kale oo aad u tiro badnaa. Halkaasi ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Armas qaybteeda magaalada Hargeysa Professor Ihsan Umar Ismail oo ka waramay barbilow maraaxilkii dheeraa ee jaamacadda Armas ay soo martay tan iyo laga soo bilaabo xilligii la aasaasay iyo tirada ardayda maanta qalin jabinaysa iyo culumta ay barteen. Uu sheegay in ardaydani ay dhamaysteen kuliyadaha dhaqaalaha, ICT-ga, Diploma in Study-ga, Accounting-ka iyo Management-ga, tiradooduna gaadhaysa buu yidhi 411 arday. Waa isaguna halkaasi ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee geyga Soomaaliland uu hambaliyay ardaydan tirada badan leh ee maanta ka qalin jabisay jaamacadda Armas. gabagabadiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray oo shahaadooyin guddoonsiiyay isla markaana uu hambaliyay ardaydan qalin jabisay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Excellent Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo. waxaana ka mid ah hadaladiisii sidatan oo wax bartay oo dalka u baratay ay maanta ku qalin jabisay oo ku soo beertay ummadda iyo dadka shaqo iyo waxtar dambe ku sii dhaqaaqi doona oo dalka iyo ummadda waafaca. marka ugu horeysa hambalyadaas aad iyo aad u badan baa soo jeedinayaan. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ka dhigo kuwii dalka iyo dadkaba anfaca ee waxtara ay noqdaan ayaa ka baryaya. dalkuna kiida nafaca isagoo wax dhintara ee aad tusado ashaa horumarisaan oo wax qabataan idinku oo ah leaderskii iyo hogaamiyaashii mustaqbalka dalka iyo dadkaba ah yaa ilaahay ka baryaya. marka ugu horeysa macallimiinta, staafka, dhalinyarada wax ugu baratay iyo intii ka shaqaysay iyo intii hawsha wax ka tirtay oo dhan waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad u ballaaran baan soo jeeday. guud ahaanba isku soo duubo munaasabadan oo ahayd mid si sare loo soo agaasimay ayaa ku soo dhamaatay jawi farxad ay ku dheehan tahay. waa Faisal Fifa, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV, magaalada Hargeysa.